waa mid ka mid ah munaasabadaha lagu weyneynayo kowda luuliyo oo ah markii xornimada ka qaateen gobolada Koonfureed ee Soomaaliya ay ka xoroobeen gumaysigii Talyaaniga sidoo kalena ay midoobeen goboladii Koonfureed iyo goboladii waqooyi ee dalkeena Soomaaliya madashan quruxda badan ayaa lagu qabtay deegaanka Goofada oo degmada Matabaan 5 kiiloomitir u jira qiyaas ahaan dhalinyarada degmada Matabaan ayaa xilliga baldhaca halkan ku qabtay munaasabad lagu weyneynayay looguna dabaaldegayay sanad guuradii 60aad ee ka soo wareegatay xorriyadda dalkeena Soomaaliya waxaana kulankan soo qaban qaabshay gudoomiyaha dhalinyarada degmada Matabaan Xasan Cabdirashiid Maxamed kamid ah bulshada degmada Matabaan ayaa halka ka hadlay waxayna ka sheekeeyeen muhiimadda ay leedahay munaasabadan waa maalintii xorriyadda Soomaaliya ay qaadatay lagana joogo muddo 60 sano ah oo aan iska xidhnay reeryadii gumaysiga laba maalmood maalmaha xorriyadda la yiraahdo 26 Juun waxaa xorriyadda Ingiriiska iska riday oo qaatay gobolada waqooyi kowda luuliyo waxaa qaatay gobolada Koonfureed oo ka xoroobay Talyaaniga haddana waxay yani sii xambaarsan tahay waa midowgii labada gobol sidaas marka ay ahmiyad gaara u leedahay inaan weyneyno xusno maadaama joodi badan iyo dhiig badan ay ku daateen yani raadinta xorriyadda Soomaaliya ilaahay baa mahaddaas iska leh waa habeenkii ay dhacday ka nasiib ka nasar sidii yahay balaan eegne marka qof kasta oo Soomaaliya oo damiir leh waxaan ku baraarujinayaa inay ku weynaato maalintaas xorriyadda kowda luuliyo qalbigeena wax ka go'i doona maahan ilaahay midnimadana waa noo soo celiyo Soomaaliya midnimadeedana waa muqaddas kale xarban oo quruxda badan anada xabadka laabtiyo xididada halbowlaha xajiga iyo margiga sare xusullada gacnaha iyo xaqlihi iyo guntiga iyo xaadda sare laftiyo hoos dhammaan xowl mariidyada xibnahayga oo idil adigaa xisaabliye calan yahow dhexulanoo xaasidkiiyo gumaystaha kula jecel xumaatada xabad inaan ku rida iyo xarbi baan la gelayaa xaasidkiiyo gumaystaha kula jecel xumaatada xabad inaan ku rida iyo xarbi baan la kelayaa marka kalena xiisow xidiglow buluuglow raggii xoola kuu gaday xinjirtooda kuu huray xabadaha gumaystaha mar inaan xorownaa ugu jira xabaalaha xaakimow ilaahow wax xumaan u geystiyo xaaddooda naariyo ka ilaali xanafoo xuuralcaynu sahalo xaamiim iyo daasiin xujuraad iyo yaasiin xeradeeda eebow xayndaabyo uga yeel xaamiim iyo daasiin xujuraad iyo yaasiin xeradeeda eebow xayndaabyo uga yeel waxaa iga xasuusoon hadalkana ku soo xiray xamar iyo hargeysaay xulafada buntlaanay xeebtii kismaayaay xaafadaha sanaag iyo xulka reer bakoolow xurduruunka joogow xaajiyaasha boorame iyo burca xeradu uga taal beledkii xorriyaddaay gaalkacya xumaanlaay xeeb iyo adaa dalag hardhan lagaaga dhigayoo xasan aadan sheegee beled weyn xusuus badan xuduntii dalkeennaay xuduud iyo isriixriix iyo dhuusamareeb xinnicebay dhammaantiin xul iyo qaran xaruntiinnu waa xamar xulufaysi daayo xoog mida samaysto xabbadda isku sidataan xurma kama helaysaane xisku ha idiin shaqeeyo xashka geliya waranko xuduuddiinna aado xabashida u diido 60 sano xisaab ka hor xumaanteeda awgeed xabaal oo rag uu jiro hanagu xilxidinina inay tahay xariir wacan ugu dambeyn gudoomiyaha dhalinyarada degmada Matabaan Xasan Cabdirashiid Maxamed ayaa u mahad celisay dhammaan dhalinyaradii ka qayb qaadatay abaabulka xuskan la isku mideeyay in hal calan la yeesho
waa maalintii muqdisho ay noqotay caasimadda Soomaaliya hargeysana ay noqotay caasimadda labaad ee Soomaaliya waa maalin xasuus ku leh qof kasta oo Soomaaliyeed waa maalin aan la iloobi karin saameynta ay ku leedahay waa maalin ku taala dhaqdhaqaaqa dhiig kasta oo qof kasta oo Soomaaliya run ahaantii maanta farxadan aan la wadaagayno Soomaalida dunida dacaladeeda ku nool waxaan rabnaa inaan ku muujino dareenkanaga degmada Matabaan ee gobolka Hiiraan aan ugu talagalnay soo dhaweynta kowda Luuliya oo run ahaantii wiilashan quruxda badan iyo gabdhahan quruxda badanba ay ugu soo diyaar garoobeen inay dareenkooda ku muujiyaan aad iyo aad aan rabaa inaan ugu mahadceliyo intii ka soo shaqaysay iyo intii isugu timid ee waqtiga gelisay waxayna noo ahaa doontaa maalin taariikhi oo aan iloobi doonin waxaan rabaa inaan uga mahadceliyo saxafiyiinta run ahaantii ee nagala qayb qaatay barnaamijkan ee noogana yimid degmooyinka